waxyaabaha xafiisyadanu adeeg ay bixiyaan waxaa ugu horeeya baasaboorka iyo aykaarka ugu horeeya. waxaan ku dadaalnay dadku qof kasta muwaadinka Soomaaliga ah meesha ugu dhow uu ka heli karo adeegaas in uu ka helo. haddii degmadiisa uusan ka jirin in degmada uu ku xigtaa ee ugu dhow uu ka jiro. runaantiina deegaano badan iyo degmooyin badan ayaan gaarsiinay adeegaas isaga ah. ujeedkeenu wuxuu ahaa in dadku aysan ku dhibtoonin helidda baasaboorka. inagoo baasaboorka Soomaaliga uu ka yahay dukumiintiga koowaad uu ka yahay oo dukumiintiyadii kaloo ka horreeyay sida aykaarkii iyo kaarkii mishiibiyada iyo wixii maanta ma shaqaynayaan. qofku maanta hadduu u baahdo inuu gurigiisa iibiyo ama heshiis uu galo wuxuu u baahan yahay baasaboorka inuu helo. keliya safar hadda maanta looga isticmaalo. waxaan marka ku dadaalay dadku inaan gaarsiino meesha ugu dhow ay ka heli karaan dukumiintiga. meelaha hadda soo hadal qaaday ma ahan oo keliya xarumaha maamul goboleedyada caasimadooda ah oo keliya ma ahane degmooyinka iyo tuulooyinka qaar ayaa inta badan la gaarsiiyey. meelahaan gaarsiin waxaa ka dhigaysa dhinaca amniga duruufaha amni loo jiro awgeed ayaa keeni kara inaanan gaarsiinin. waxaa suurtagala marka deegaan amni daro ay naga reebtay in qofka jooga uu ama caasimadda yimaado ama gobolada kale ama degmooyin kaleeto u tago. laakiin runtii waa dadaalnay oo ilaa 32 xafiis oo baasaboorka laga bixiyo ayaa ku yaala dalka gudihiisa. baasaboorkeenu waxaa ku qoran xarfa qaldan xarfa isticmaal oo laga wado saan u fahmay xafiiska iyo erya kale. saas daraaddeed agaasime baasaboor waxaa maamushaa ereyada ku qoran ay aad u kooban yihiin laakiin haddana la sixi waayo. aniga markaa baasaboor doonaayo CID-da maraa CID-da magaciisaan u qorayo iyo sida loogu qorayo xafiiska ii sheeg muxuu ahay baasaboorka iyo dadkista sida magaca loogu qorayo magacay kuma nooca loo qoraa. waxaan rabaa baasaboor marka la sameynaayo anaga keligaan go-aanka ma gaarno. hay-ado badan ay khusaysaa saasna inaad la socotiin waa jeclaan lahaa. marka haddii meel wax ka qaldan yihiin keligan yaana loo saarin. goobaha dhalashada ee baasaboorka lagu qoro waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iskale. baasaboorka marka la sameynayo iyagaa liis loo diray oo layiri liiskeena degmooyin deegaanada meelaha ay deegaan ku yaqaaniin oo baasaboorka lagu qori karo magacyadooda keena. liis marka waxay keeneen magacyo badan ay ku qoran yihiin ayagoo kullooba ka tixraacay wixii markii horeeto deegaanadii la yaqaanay ka tixraacay. shaqada meesha lagu qorayo waxaa iskale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. annaga iskama qori karno. Soomaaliya maxay shaqo u taqaanaa? imise nooc shaqaa ka jirto Soomaaliya ayagaa iskale. iyaguna waxay xaq u leeyihiin ama la weydiiyey inay keenaan shaqooyinka muwaadiniinta Soomaaliyeed ama shaqooyinka Soomaaliya gaar u ah iyo kuwa internationalka ah oo adduunku isla ogyahay inay soo liisgareeyaan. ayagoo liiskaas ay keeneen systemka la geliyey degmooyinkii ay keeneen iyo magacyadii ay keeneen wasaaradda arrimaha guduhuna waa la geliyey. mararka qaar diintii oo qaafta xitaa waa ku lug yeelataa oo xarfaha lagu qoraayo su-aalaha mararka qaarkeed ayaguna waa ku lug lahaa cid wal. yani waxaa rabaa marka la sameynayo wax cid gaara ay maarata go-aanka gaarta maahayn.